marka hore dhamaantiin waa wada ogtiin inaan wada isticmaalno taleefanada qacanta maanta taleefanadu waa habka ugu dhaqsiyaha badan leh ee inoo sahla inaynu la xiriirno asxaabteena qoysaskeena si aynu isaga warhayno ku soo dhawaada silsilad cusub oo nagu magac daray wicitaanadii ka yaabiyay booliska wadan kasta oo adduunka ku yaala waxay leeyihiin xarumo boolis oo lambarkooda afgarashadu yahay 911 kaliya tan la waco marka ay jiraan xaalado degdeg ah ama badbaadin nafeed sidoo kale xarumahaas waxay leeyihiin qisooyin cajiib ah oo madow oo ku saabsan wicitaanadaas qaarkood yihiin qaar cabsi iyo argagax sidoo kalena qaarkoodna wax sharaxaad ah loo waayay saacadu markii ay ku beegnayd 7 subaxnimo 2018 bishii 8 waaxda booliska ee Colorado iyagoo iska fadhiya oo aan waxba qabanin iska raaxaysanaya sidoo kalena daawanaya muuqaalkii ugu dambeeyay ee YouTube ka soo geliyay 3 bilood ka hor sidoo kale isweydiinaya meesha aan ka dhacay iyo meesha aan ku maqanahay ayaa si lama filaan ah loo soo wacay wicitaanka u soo dhacay waxa uu kharibay maalintooda sababtoo ah wicitaankaasi waxa uu ka yimid meel lagu magacaabo Imperial Memorial Gardens meeshaasina waxay ahayd meel xabaalo ah yaa saatir booliskii ayaa hadaba ka jawaabay taleefankii waqtigaasina waxay ku beegneed 3 habeenimo boolisku markii ay qabteen taleefanka qofna lama hadal sidoo kalena waxay sheegeen in qofka soo wacay booliska gabi ahaanba uu aamusay muddo dhowr ilbiriqsi ah kadibna taleefanka la jaray hajarin mobilka maxaad u jaraysaa noo sheeg sababta aad booliska u soo wacday maxaa jira xaalada degdega ah ee jirta noo sheeg raggii booliska ahaa ee joogay xaruntaas way cabsadeen wayna argagaxeen sababtoo ah qofna soo muuco booliska si uu xaaladooda u ogaado ilaa qof u baahan caawimaad degdega mooyaane isla markiiba booliskii xaruntaas joogay waxa ay ku celiyeen isla lambarkii laakiinse isla sidii hore ayuunbaa dhacday taleefankii waa laga qabtay laakiinse qof weli hadlaya ma jiro haddii aad ugu fiirsatid waxaad maqlaysaa cod yar oo aan la fahmi karin laakiin arrintii waa ay ka sii dartay taleefankiina mar labaad ayaa la jaray intaa kadib booliskii joogay xaruntaas aad bay u cabsadeen si waadaxana waxay u ogaadeen in wicitaankani ka imanayo meel xabaalo ah boolisku waxa ay joojiyeen fikirkii badnaa waxayna u direen goobtii uu wicitaanku ka imanayay baabuur boolis ah si loo soo ogaado xaaladda meeshaas inay wacan tahay iyo in kale laakiinse inta ugu naxdinta badan la waa inta markii ay boolisku gaareen xabaalihii waxay ogaadeen in gabi ahaanba ay xabaaluhu xidhan yihiin sidoo kalena wax dhaqdhaqaaq ah iyo cid joogtaaba aanay jirin maxaa soo wacay markaa maxay haayeen maruuxda soo wacasay sheekadana waxay ku faaftay America oo dhan heer waxay gaadhay meel kasta laga hadlo laga sii daayana newsyada laakiin ilaa maantada la joogo qofna ma garanayo cidda wacday booliska wicitaanka kale waxaynu dib ugu noqon doonaa 2008 bishii 9 gaar ahaan magaalada California maalintaas magaalada California waxa ka dhacay shil aad iyo aad u naxdin badan leh tareen sidii 250 qof kuna socday xawlidan 8 kilomitir saacadii ayaa ku dhacay tareen kale nasiib darro shilkaasi waxa uu keenay dhaawac gaaraya 135 qof iyo 26 dhimasho ah mid kamid ah rakaabkii tareenkaas saarnaa ayaa magaciisu ahaa Jack Beck waxa uu jiray 49 sano sidoo kalena waxa uu dhalay 3 carruur ah gabadhii uu ka dhalay 3 carruurta waa isfuray sidoo kale waxa uu guursaday xaas cusub markan uu tareenka saarnaa waxa uu ku sii socday xaaskiisa cusub sidoo kalena xaaskiisa cusub iyaduna way ogeed xilliga uu tareenku imanayo basteejada waxayna qorsheynaysay in ay ka hor tagto oo ay soo dhaweyso waxa ay soo kaxaysatay gaarigeedii waxayna u soo jihaysatay goobtaas iyo tareenka intii ay soo socotay waxay dhageysanaysaa idaacadda kadibna waxay ka dhex maqashay idaacaddii ama newskii in uu dhacay shil tareen kadibna way fajacday oo indhahay taagtay xaalad xunna way soo waajahday sidoo kale dhanka kale gurmadkii degdega ahaa waxa ay soo gaareen goobtii uu shilku ka dhacay kooxihii samata bixintu waxay isku dayeen inay dadka ka soo saaraan burburka shilkaas naxdinta badan leh kadibna Jack Beck reerkiisu waxa ay doonayeen in la xaqiijiyo Jack Beck inuu nool yahay iyo inuu dhintay laakiinse Jack ayaa si lama filaan ah u soo wacay aabihii ninkii la doonayay in la ogaado inuu nool yahay iyo in kale ayaaba dadkii soo wacay aabihii ayuu soo wacay laakiin aabihii wax cod ah kama una maqal Jack intaas kadibna taleefanka waa la jaray haddana sidoo kale gabadhii cusbeed ee uu guursaday Jack ayaa la soo wacay yaa soo wacay soran karta waxa soo wacay Jack kadibna isla markiiba waa ay ka qabatay laakiin weli ma jirin wax cod ah oo ka imid Jack kaliya codka dabaysha ayaa ay maqlaysay gabadhii uu guursaday taleefankii Jack weli wuxuu sii waday wicitaanadii markii ay 12 saacadood ka soo wareegatay burburkii tareenka taleefankii Jack waxa uu sameeyay 35 wicitaan ah iyo wacay baas leeday waxa uu wacay aabihii waxa uu wacay xaaskiisa sidoo kale waxa uu wacay dhammaan qoyskiisa oo dhan waxa kaloo la yaab leh marka uu Jack waco qoyskiisa in kaliya qoyskiisu ay maqlayeen codka dabaysha Jackna haba yaraatee wax cod ah aanu kaba soo baxay sidoo kale kooxihii samata bixinta ahaa ee loo diray tareenka waxay ku hawlnaayeen meydadka iyo dhaawacyada dadka kadibna iyagoo shaqada hawsha badan ku jira ayaa ugu dambeyntii
kooxdii si lama filaan ah u heleen Jack laakiin nasiib darro waxa uu ahaa meyd Jack wuu dhintay taasina waxay naxdin ku noqotay dhammaan qoyskiisa laakiin naxdinta dhabta ah waxay ahayd goortii la baaray jirkiisa lana xaqiijiyay in Jack uu dhintay markii ay labada tareen isku dhaceen sidoo kale dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen in ayna macquul ahayn inuu sii noolaado hal daqiiqo haba yaraatee kadib markii labada tareen isku dhaceen what laakiin markii uu shilku dhacay 12 saacadood kadib soo ka sameeyay maha taleefankiisu 35 wicitaan ah حتى هدينو سكلا u eegno oo aynu niraahno mobilkaas wacayba waynu aqbali lahayn hal qof iyo hal jeer oo la wacay laakiin marar badan ayuu wacay saddex qof oo kala duwan dadka qaar waxay yiraahdeen qoyskiisa waxa soo wacay ruuxdiisa si ay u dareensiiso in ayna ka walwalin qoyskiisu oo uu nool yahay laakiin aragtidaas aniga way ugu adag tahay inaan aamino laakiin wax jawaab ah looma hayo wixii ka dhacay halka waxaas ka sii daran oo wareer iyo dhiig kugu ridaya baaritaan dheer kadib shilkaas naxdinta badan leh in gabi ahaanba mobilkii check la waayay ilaahiyo waxaan u baahanahay ugu yaraan 50 kinin oo kininkii Panadolka ah kininkii madax xanuunka ah runtii sheekadan aad bay u faaftay waxaana laga sii daayay wararka Never find out exactly how those calls were made because Chuck's phone was never found illa maanta la joogo lama garanayo cidda soo wacday qoyskaas Checkback okay waxaan filayaa wicitaankii inuu yahay wicitaankii ugu dambeeyay inta aanan ka hadal waxaan ka codsanaynaa channelka subscribe sartid sababtoo 40 kun waxba nooga maarsana sidoo kalena videoga like garay 5k oo like ah yana ka weyn muuqaalka okay waxaan ku dhaaranayaa wicitaankii inuu yahay wicitaankii ugu yaabka badnaa ee aan maqlo noloshayda waxaan arki jirnay qof booliska waca oo u sheega in ay xaalad degdeg ah jirto ama inay caawiyaan ama gargaar degdeg ah inay dhibaato qabsato kale si ay u badbaadiyaan laakiin kan waa uu ka duwan yahay dambiilahan waxa uu la hadlay booliska waxa uu na koori hello dhageysta waxaan samaynayaa dambi ee ii kaalaya oo ay qabta ha miyad waalanta mise yaradu qombaatay qofka aan ka hadlayno waxa la yiraahdaa Charles Foster aan ugu yeerno Foster si uu magaciisu noogu fududaado sanadkii 2015 Foster ayaa soo toosay kadibna waxa uu bilaabay inuu ka fikiro maanta waxa uu samayn doono maanta niyo maxaa sameeyaa maanta maxay qorshaysnaa niyo maxaa sameeyaa Foster kadibna waxa uu go'aansaday in uu dilo xaaskiisa si kastaba ha ahaatee Foster inta aanu dambigaas gali waxa uu soo qaatay mobilkiisa kadibna waxa uu wacay booliska 911 just a minute, please. you need police or ambulance there Yes, ma'am. This is serious. okay do you need police or an ambulance Would you shut up and listen to me for a second? sidaad aragtaba markii ugu horeysay ee uu booliska wacay waa uu yara baqanayay oo waxa uu ka cabsanayay inuu u sheego in uu falkan samayn doono haddana dhanka kale shaqaalihii booliska ahayd ayuu ku yiri aamus buuq uu yara sameystay intaa kadib umay jawaabin iyadiina markaas kadibna waa uu ku jiray telefoonka I will call you back. do you need the police or an ambulance there Yeah. I will call you back. what is your name kadib markii uu jaray mobilka ku dhawaad hal daqiiqo kadib ayuu ugu celiyay isla booliskii isla shaqaalihii ka qabatay markii hore ayaa haddana dib uga qabatay kadibna wuxuu bilaabay inuu la hadlo magacaygu waa Foster waxaan doonayaa inaan dilo xaaskayga hi can I help you My name is Charles Hendricks Foster. And I am about ready to kill my wife. ya ilaahi bal qiyaas inaad tahay gabadha shaqaalaha ah qof baa ku soo wacay si uu ugu sheego inuu xaaskiisa dilo kulli qofna ma uu jeclaadeen arrinkaas kadib markii uu u sheegay inuu samayn doono dambigaas gabadhii booliska ahayd ayaad ku tiri ma isiin kartaa ciwaanka gurigaaga ama adresskaaga waxa ay doonaysaa in ay u dirto boolis kadibna la soo qabto saaxiibkay wuxuu yiri ma taqaanaa okay waan ku siinayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma xiskuha 5601 apartment, Ferndale, Washington. ciwaanka gurigiisa oo faahfaahsan ayuu siiyay shaqaaladii booliska ahayd waxay ahayd mid aad u caqli badan markii ay ciwaanka gurigiisa ka qaadatay waxay go'aansatay inay la sii hadasho oo ay sii maaweeliso sida inay tiraahdo kale ciwaanka maxaad ku tiri ciwaankani ciwaan jiraba ma ahay bal mar labaad igu celi waxa ay iska dhigtay in ay tahay doqor si ay u sii dheerayso wada hadalka taleefanka takala ogsoonow isla markii uu u sheegay ciwaanka gurigiisa isla markiiba waxay u dirtay boolis si ay u soo qabtaan inta uusan gelin dambigaas foosha xun leh laakiin dhowr daqiiqo kadib markii ay isku dayday inay mashquuliso Foster waxa uu ogaaday inay mashquulinayso si uusan u samayn falkaas wuxuu go'aansaday inuu jaro telefoonka You know what? Just send a f***ing cop out Okay, here I've already- and let it go Sir? at that. Bye-bye. hey sir intaa kadib waxaan filayaa inaad dhammaantiin aad ku wada faraxsan tihiin wixii halkaa ka dhacay hawlwelin wax walba waan kuu sheegayaa kadib markii uu jaray telefoonka isla markiiba way ku celisay laakiin nasiib darro waa uu ka qaban waayey
waxaan u malaynayaa inuu xaaskiisa kuba qadeeyeyba intaa kadib booliskii waxay gaadheen gurigii naagtina waxay ka heleen qolka fadhiga laakiinse wuxuu la dhacay midi laakiinse waxaan kuu sheegayaa war wanaagsan isbitaal ayaa la dhigay gabadhii wayna badbaaday ilaahay baa mahad Foster isna ugu dambeyntii waa la xiray waxaana lagu xukumay dil darajada labaad ah sida arki kartaanba waa kan ninku muuqaal ayaa laga sii duubay markii la xiray halkan uu dhex socdaa imaka waa saldhigi wuxuu u socdaa sidii nin aan waxba samaynba dilaa khatar ah ayuu ahaa ugu dambeyntii waa la xiray sheekadiisuna sidaasay ku dhamaatay